seminaarkan oo soconaya muddo 3 maalin ayaa waxaa lagu baranaya casharo muhiim ah oo la siinayo in ka badan 80 ruux oo ka kala socday ururada yaryar ee ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo xuquuqda carruurta dadka waayeelada ah. waxaana seminaarkan qabashadiisa iska kaashaday hay'adda Mutsa oo ah hay'ad ay madax ka yihiin aqoon-yahano Soomaaliyeed iyo wasaaradda horumarinta adeegga bulshada ee dowladda Koonfur Afrika. maxamed raagi oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed oo ka tirsan hay'adda Mutsa isla markaana dowladda hoose ee magaalada Cape Town kaga shaqeeya arrimo badan ayaa casharada bixinayay waxaana uu sharaxayaa waxyaabaha lagu baranayay seminaarkani. marka labaad waxaan rabaa inaan ku sheego tababarka aan bixinayna maanta waxaa ka mid ah sidii loo tababari lahaa hay'adaha qaabka ay fankooda ama hantida deeqdooda ah ay u raadsan lahaayeen si fudud iyagoo aan dhibaato ku gaarin. marka labaad waxaan baraynaa hay'adaha sidii ay u qori lahaayeen qaabka loo raadsado fanka ugu dhiibin lahaayeen codsigaas hay'adaha deeq-bixiyaasha iyo kuwa kale. marka waa tababar 3 maalmood soconayo oo dhowr qaybood oo inta aan tilmaamay ka hadli doono. waxaan rajaynayaa hay'adaha halkan iskugu yimaada maadaama ay ka yimaadeen bulsho aad dakhligooda u hooseeya oo tabaalaysan in arrintan wax weyn horkac iyo horumarin ay u soo jeedaan. mahad cumar cabdi oo ah gudoomiyaha hay'adda Mutsa oo warbaahinta kula hadlay banaanka kore ee xarunta wasaaradda horumarinta adeegga bulshada xafiiskeeda deegaanka Qalinja ayaa sheegay in seminaarkan ay ka leeyihiin ujeedada ah in la muujiyo Soomaalida South Africa inay yihiin dad walba ka muuqan kara oo leh aqoon-yahano wax badan kala shaqeyn kara bulshada South Africa. fariinta ay gudbinayaan ay tahay in wax badan ay ka qayb qaadan karaan horumarinta adeegga bulshada iyo ganacsiga intaba si loo bedelo sawirka halka dhinaca oo laga aaminsan yahay Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika. ujeedadaan ka leenahay shirkan waxa weeyaan waxa dhaca mar kastaba dhac dil bob Soomaalida loo geesta saas daraadeedna waxay saabtaa taasu in loo arko Soomaalida dadka dhaqaalahooda iyo hantidooda bis qaata oo aan dalka ay dadka waxba ku soo celin. marka waxaan doonaynaa in aan fikradaas wax ka bedelno oo aan tusno mutacalimiinta ganacsatada Soomaalida oo isku tagtay in ay wax qabad muujin kara ay dawladda la sameeyaan. waad dareemi karaysaa hadda shirkan waxaa qaban qaabinaya Bosnia oo ah organization Soomaali oo ani Maxamed aan sameynay iyo dawladda qaybteeda horumarinta bulshada. waa markii uu horeysay oo seminar noocan ay qabtaan aqoon-yahano Soomaali oo xirfadooda iyo aqoontooda wax uga faa'iideynaya ururada yaryar ee ka shaqeeya arrimaha bulshada. waxaana seminaarkan uu qayb ka noqonayaa dadaalada aqoon-yahanada iyo ganacsatada Soomaalida ay ugu jiraan inay wax ka bedelaan marxaladda ay ku nool yihiin Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada. Abdullahi Maxamuud Amiin Abdullahi Qorshe warbaahinta qaranka Soomaaliya Cape Town Koonfur Afrika.